haddana dhaqaale iyo ay iska jiraan sixir barar qof aan gaari wada ma jiro 80% dadkeenu gawaari bay wataan say doonaan baa ku inay ilaahay inta yar ay haystaan buu ilaahay u barakeeyay wuxuu maan leeyahay culays badan oo salaadiinta iyo dadka kadeed ku ahaa bay arrintan idinka furanaysaa horta anu waxaan ka ballan qaadayaa inaan 100 sheer iibsanayo hadduu ilaahay dhaado bada saabkiiyaba iyaguna halka joogo dawladdii kullay rool bay leedahay runtii nidaamkan iyo dhaqaajintiisana dawladdu rool bay ku leedahay culays badanna uu kaga furfurmaya laakiin waxyaabo badan oo u baahan in wax laga qabto la iska kaashada ayaa jiro dawladuna aan lagu eegin haddaynaan isku xidhnaanshaha iyo wada shaqaynta iyo waxa wanaagsan inaynu isku taageerno haddaynaan dhiiri gelin wax alla wax naga soconaya ma jiro arkaya already waxa lagala soo xiriiraya wadamo fara badan oo ay ku arkeen internetka iyo televisionka ka arkay iyana la soo xiriirnay shirkadda waan doonaynaa oo Europe iyo maaragtay Canada iyo Mareykan iyo jooga iyana la soo xiriiraya South Africa waa laga soo xiriiray waan doonaynaa in iibsano dadka fahmaya way garanayaan qiimaha ay leedahay markaas saamiyadaas oo kale aniguna magaaladayda Boorama waan soo bandhigo waxay tahay ma sharaf bay tahay insha Allah ta'ala ilahayna inagu astro anigana ay ugu astro lacagan qaado bilaadan ka qaado wax yani xilliga weyn ma garanayo marka hadiyo jeer ilaahay wax ku duceystaa inuu ugu astro dadka qaatina ku arsaaqo Hargeyso caasimadii bay Yusur ka furtay 20kii bisha inaynu ka mid noqono shirkadan qiimaha weyn leh ee aadka u qiimaha badan waxa laga yaabaa imika inaynaan fahansanayn ka mid noqoshahan ay Yusur inoo furtay oo ka ugu yari uu yahay maxay 525 ka ugu badanina uu yahay $30,000 waxa weey qofkii mid kule iyo qofka boqolkiiba leh waxa weeyaan saamiga isku mid buu helaya hadii Ilaahay yiraahdo halkan warkasi ay Yusur aadan faarax inoo sheegtay hadiyad bay inoo sidaa waa hadiyad waxa baabuuradii way bateen dhibaato dadka haysata waxa sida imika barasaabku sheegayay maalin kastaba waxa weeyaan waxaasa lagu jiraa tanina waa tii kabaysay ee wax ka qabanaysay waa inaan si fiican looga qayb galaa aniguna waxaan qaadanayaa 100 sheer baan qaadanayaa ninkii hortaba qaatay baan koow aniga amaan maalintii maantana waa laba Soomaa maantana xaq hore iyaan ka qaatay inta 100 ku qaadatay koow baan horta ku jiraa haddaad gacanta imika 100 soo taagtay adana waan soo taagaya jeebkan ku sidaa waxaan leenahay ha joogo ha jiro insha Allah ta'ala aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ka abraarow hawsha qiimaha leed wadaan inagoo dadkii taariikhda ku suntanaa ka qayb tolkayo haddana hawshan maanta aad daadahaynaysan aad noo keenteen walaalayaal aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsannahay hawshan iyada ka qaybgalkayga maanta muddana ragga dhagaha taagaya baan ka mid ahaa anigu nimanahay waxaan dhowr qodob oo yaryar baan ka hadli marka xigta dhammaanteed hadday tahay gaadiidka iyo hadday guryaha tahay iyo hadday caafimaadka tahay iyo hadday dhammaan wixii halkaa 5-6 qodob ee halka ku qoraa ee badqabka ahaa dhammaanteed haddaan suldaandhana u dhowalahay waan soo dhaweynayaa waxaana rajaynayaa sida u badan hadday tahay gaadiidka iyo guryaha iyo caafimaadkana waxaan u diyaarahay inaan qayb ka noqdo marka labaadna waxaan salaamayaa gabadha soo abaabushay Yusur faarax aadan abraar oo runtii aan maanta oran karno wax badan baa laga hadlay siyaasad iyo waxbarasho iyo aan u soo joognay laakiin maanta ku soo kordhisay wax uniiga oo ugub ku ah Soomaaliland oo dhan gobolkana ugub ku ah marka ka shirkad ahaan anigoo ah maamulaha shirkadda Starbus waxaan uga faa'iideysanaynaa inaan arrintaas soo dhaweynayno hadday tahay dirawaliinta iyaga laftooda waxa weeyaan tiro badan oo waxa jirta shaqaalaha ama caafimaad ha noqoto ama sida suldaanku tilmaamay suldaan dhawal guriyahaba ha noqotee waxaan ka shirkad ahaan diyaar u nahay inaan insha Allah ta'ala ka qayb qaadanno oo aan si annagoo xagga saamigana eegi doona baahita ka dhow oo inaan la tacaamulo shirkadda oo aan uga faa'iideysano waxyaabaha ay bixinayso ayaan runtii aad u soo dhaweynayaa dadka fara badan
waxa weeyaan arrintaa diyaar baan u nahay waana soo dhaweyn marka yusur faarax abraar dhibaatooyinka jira waxay u bedeshay opportunity furastaasoo cid kasta oo inaga midii ay waxa weeyaan ay ka faa'iideysanayaan oo aanu mataqaana ugu horeeyo lacagta bahasha malaha waan ya dhalnaaye iskaga ku eega oo sheerashana iibsada oo waxa weeyaan dee adduunka waxa weeyaan markaad wax iibsato sheerkaad iibsato kambaniguna faa'iidi karaa una khasaari karaa dib male marka lacagta lama ilaaliyo lamana dhalo lacagta waxa weeyaan si ay lacag kale kuugu dhasho waa inaad wax maal geliso aad baad u mahadsantihiin sheerashana